shirkadda isgaarsiinta Samtel oo xaflad si heersare ah loo soo agaasimay ku qabatay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Xafladan oo daarnaneed guddoonsiinta abaalmarinta guuleystayaasha barnaamijka maamuuska macmiilka ee shirkadda isgaarsiinta ee Samtel, waxayna macaamiisha shirkaddu guddoonsiisay hadiyado qaali ah oo ay isugu jira gaari, dahab, talaagado, mayfiga shirkad bixiso iyo sidoo kale xirmooyin. Waxayna shirkaddu habeennimadii xalay ahayd guddoonsiisay guuleystihii ku guuleystay gaariga. Waxaana xafladda ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha dowladda Puntland, gudoomiyaha rugta ganacsiga dowladda Puntland. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay xafladda qayb ka mid ah macaamiisha shirkadda Samtel si ay goobjoog u noqdaan guuleystayaasha ku guuleystay hadiyadaha ay shirkaddu ugu tala gashay. waxayna shirkaddu u rajaysay macaamiisha aan ku guuleysan hadda hadiyadaha in ay kuwa dambe ka faa'iideystaan. waxaana mas'uuliyiinta hadaladoodii ka mid ahaa barnaamijkan maamuuska macmiilka waa markiisii afraad oo macaamiisha aanu abaal marinayno. markan waxa aanu macaamiisheeda ku abaal marinaynaa hadiyado qaaliya. halka waxaa nala jooga macmiil ka mid ah macaamiisha shirkadda Samtel oo ku guuleystay gaari Probox waxaan halka ku guddoonsiin doono. sidoo kale waxaan guddoonsiin doonaa macaamiisha hadiyado kala duwan ay ka mid yihiin smart TV, mobile, smart mobile iyo qasaalad, talaakad, sadahaba itemskaas oo dhan baan halkan ku guddoonsiin doonaa macaamiisheeda. Samtel mar walba waxay u taagan tahay inay macaamiisheeda ka farxiso, mar walba waxay u taagan tahay inay macaamiisheeda wax ku celiso. Samtel qaamuuskeeda wuxuu ku qeexaa macmiil inuu yahay boqor. mar walbana waxay u taagan tahay inay macaamiisheeda aad iyo aad u maamuusto, abaal mariso. ma laha markii ugu horeysay ee Samtel ay macaamiisheeda abaal marinayso, mana noqonayo markii ugu dambeysay. waa barnaamij socon doona. macaamiisheeda waxaan leenahay ka faa'iideysta. mar walba waxaan naga mudan tihiin maamuus. waxaanu idin diyaarinahay inaan mar walba idin maamuusno. waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya macmiilka guuleystay iyo macaamiisha kale guuleystay dhammaan. caawana halkan waxaa nala jooga guddoomiyihii rugta ganacsiga iyo wasiir ku-xigeenka dekedaha oo macmiilka ku wareejin doona gaarigii, macaamiisha kalena guddoonsiin doona hadiyadahoodii. runtii waxay tahay farxad weyn inaan ka soo qayb galo xafladan abaalmarinta macmiilka ee wado shirkadda Samtel. runtiina waa farxad aad u weyn. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulina bacd. wasiir ku-xigeenka dekedaha, bahda Samtel ama Dahabshiil Group iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan quruxda badan, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaam kadib, runtii farxad bay noo tahay caawa inaan ka soo qayb galno xafladan lagu abaal marinayo ku guuleystihii barnaamijka maamuuska macmiilka oo ay shirkadda Samtel ay qabatay xafladan ka horeysay, oo runtii si daah furan ay u qabatay iyadoo aan garanayn macmiilka ku guuleysanaya, goobjoogna aan ka ahay. runtii arrintaas aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa shirkadda in si furan oo cadaalad ku dheehan tahay uu ugu guuleystay macmiil kasta wixii ilaahay xaq u siiyey ama uu calaf u lahaa. aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. barnaamijkanna wuxuu qayb ka yahay inay shirkadda Samtel ay macaamiisheeda wax ku celiso oo aanay noqon faa'iideysta keliya, laakiin ay noqoto mid qofkii ka faa'iideysatay isaguna uu ka faa'iideysto oo mararka qaybkooda uu helo waxyaabo uu ku farxo oo aanu madaysaninba. runtii markii aan wacay ku guuleystihii gaariga, codkiisu xitaa wuu gaabnaa. markaan waxaa ku guuleysatay haddama garanaayo gaari Probox. waxay ku ahayd runtii arrintaas adiga mucjisay ku ahayd. wuuna farxay markii aan hadalka u sii waday wax yar. waxaan rajeynayaa in gaarigaasu noqdo mid lahay u barakeeyo oo noloshiisa qayb muhiim ah ka noqda. shirkadda Samtel runtii waan uga mahadcelinayaa dadaalka iyo waddo inay markasta macaamiisheeda garab istaagto waxna ku soo celiso.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوميها runta ganacsiga tiimka dahabshiil group somtel group guulaystayaasha gaar ahaan guulaystaha gaariga haweenka dhalinyarada soo qaybgalayaasha miidiyaha dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxay aniga ii tahay farxad weyn inaan caaway xafladan somtel ka soo qaybgalo runtiina ka soo qaybgalkaygu aniga maahan anigu tiimka somtel baan ka tirsanahay tiim somtel baan anigoo wasiira baan haddana tiim somtel ahay sababta ah waxay ka mid tahay somtel cv-gaygay ka mid tahay waan ka soo shaqeeyey waqti dheer baan u huray xooggaygii baan geliyey dhididkaygii baan geliyey waana ku rasaaseeyey dharkaan naga gubtay markaan talooyinkooda ka shaqeynayna raggaan garow ka soo shaqeynayna waa joogaan marketing managerka garow markaan ahaa nafteeda khatar u gashay marka si kasta ha u ahaato waxa weeyaan maanta meeshay marayso waa meel aada u fiican marka waxaan jecelnahay mar walba markaan soo toosay waxaan jeclahay in somtel ay xidkaha ku jirto oo ay shirkadaha kale ka horeyso sababta waxbaa iga galay maalgashiga iga galay baan ilaashanaya marka reer somtel waxaan leenahay guulaysta maanta meeshaad joogtaan waa meel fiican weeye micnaheedu waxa weeyaan shirkaddu waa soo gebagabaysa dalkii wey waa waxa weeyaan waad soo wareegaysaa Indian Ocean baa ka soo wareegaysaa raas caseer baa ka soo dhacaysaa kadibna waxaad imaanaysaa boosaasaa 8 meel u dirsanaysa marka shirkaddu shaqo fiican bay qabatay tiimka somtel waa mahadsantahay